daawadeel maxaad ka taqaanaa dawladda Cusmaaniyiinta ee dalka Turkiga nin markaasi ka tirsanaa oo la oran jiray Sudju Iimaan oo deganaa magaalada la yiraahdo Maraash ayaa waxa la sheegay in dadkii halkaasi waqtigaasi ku noolaa dawladda Faransiisku markay soo gashay ayaa waxa la sheegay in uu gabdhaha halkaasi ku noolaa oo maalmaha kamid ah nin Faransiis oo halkaasi magaaladaasi soo galay ayaa wuxuu markaasi dawladda Faransiiska weeyaan ciidamadeedu waxay ku yiraahdeen dumarkii halkaasi ku sugnaa maanta oo kale uma baahnidin inaad xijaab xidhataan. daawadayaal markii ay dawladda Cusmaaniyiintu ay meesha ka baxday ayaa Faransiisku waxa uu qabsaday qaybo kamid ah koonfurta dalka Turkiga gaar ahaan magaalada Maraash. askari kamid ah ciidamadii Faransiiska markii ay taariikhdu ahayd 31 Oktoobar 1919 ayaa oo maraya magaalada ayaa arkay dumar xijaaban ayuu markaasi waxa uu istaajiyay dumarkii wuxuuna ku yiri dawladda Cusmaaniyiintu way dhacday gobolkana anaga xukunee sidaas daraadeed uma baahnidin inaad xijaabataan iska dhiga xijaabka balse way diideen dumarkaasi waxa uu isku dayay tii ugu dhaweyd inuu xoog kaga siibo xijaabka nin meesha ka agdhawaa oo la oran jiray Sudju Iimaan ayaa intuu askarigii Faransiiska ah boostoladiisi ka dafay goobtii ku dilay kadib waxa bilowday kacdoon loogu magac daray The Battle of Maraash kaas oo Faransiiska laga xoreeyay magaalada. qisadani waxa laga sameeyay taalo iyo sidoo kale iskuulo lagu dhigo waxaana jira jaamacado loogu magac daray ninkaasi oo loogu magac daray Sudju Iimaan University iyo sidoo kale jimciyada khayriya oo halyeygaasi loogu magac daray. dalka Turkigana si gaar ah ayaa looga xusaa ninkan halyeyga ah ee waqtigaasi ka dhiidhiyay in dumarka markaasi xijaabka ay siibaan oo ay markaasi qaawinaan ku maraan inkastoo dumarkaasina waagaasi ay diideen. arintani daawadeel waxay ku tusinaysaa in dadka muslimiinta midba midka ku iimaan badan yahay oo markaasi taariikhdu ay xusi doonto. nuqulkana wuxuu kamid ahaa taariikhaha dalkan Turkiga iyo sidoo kale magaalada Maraash iyo sidoo kale ninka lagu magacaabo Allahu raxmade Sudju Iimaan oo markaasi waagaasi ka dhiidhiyay in dumarka muslimiinta si dhayal lagu qaawiyo. muuqaalkan haddii aad ka heshay si share waana mahadsantihiin. fadlan waxaan idinka codsanayaa YouTube-keena Hogol News iyo sidoo kale page-keena Cabdiweli Nadaara. YouTube-kana subscribe noo saartan, page-kana follow iyo sidoo kale like. waad ku mahadsantihiin.